مركرة سعادة الوزير هلقا وحفظيا معلمين تكسيد وصدح دال كان سومالي لا وحكا جري oo ku jiray 3 semester hadduu soo xirmay imtixaankii baa u dhamaaday semesterkii saddexaad saas ugu dhamaaday 4 semester waxa haray hal semester insha Allah binilaahi karim jumba lagu soo noqon doonaa siday noo sheegeen maamulka iyagu wasiir sidii aad hore ogeed maalinta hore ugu furtay bishan ka horeysay oo ahayd July August ahayd adii Axmed baa aad u furteen aad ku ogeydeen aad la socoteen waxay bartaan hababka wax dhigista oo kolba kii horeba dhigtaan mid kale lagu soo celiyaa oo socday 3 bilood oo 3 semester u dhigma iyo maadooyinkii ay ku dhigayeen dugsiyada ay ka yimaadeen oo dhan ayay maaragtay bartaan si fiican u dadaalaan imtixaanada way galaan waxa la rajaynayaa markay dhameystaan hadii aan la 3 bilood iyo bisha inoo harsan oo hadii la juu noqonaysa hadii ay ilaahay xaqiisa ay ka noqoto inay markaa noqon karaan secondary waxbarashadii dugsiyada sare iyo dheeraadkii macalinimada ahayd xirfadaha iyo qaababka wax loo dhigo oo dhan bayna dhameystirteen marka awal hadii ay si dhaca ku faax u dhigi jireen maanta markii ay bil galaanba waxa lagu wasaaradda waxbarashada ugu tala gashay iyo kulliyadda oo aad ugu meetay ugu tala gashay inay la tagaan habab cusub iyo habdhigis cusub iyo cilmi cusub oo maadooyinka midna si u yaqaanaya in qof waliba dadaalkiisa ku xiran tahay marka qof waliba waxaynu bedelay qaabkii uu fikiraya attitude-ka waxaynu oran jirnay iyo behavior-kiisa wada bedelay inay duruusu inay waxbarashadu tahay gebigeedwa سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يتعلم العلم من المهد إلى اللحد إلا مركز درتين إلا دمشقة واحد الإدوكيشن سبروسس واحد سوي سيادة بقى واو حقيد السعود عندما قف مركز نفط كبحضه إلا لو كفر غير كله آخره مركز صبح واحد رسولنا معته مركز ضد كذي واحد فينا وزير إني بارت الفكر كقاعتين إني واحد يسوي هاللي إنه حكوفة منا يمشوا هذا يسمي كوده يسوي دوله shaqada macallimadu waa shaqo adag weeyaan dhammaanteennuna ka wada daragsanahay waa shaqo u baahan runtii dhabar adeeg fara badan dadaal fara badan ka go'naansho fara badan iyo daacadnimo fara badan waayo waxa la soo saaraya waxa weeye waa mustaqbalkii dalkanu lahaa weeyaan haddii dadka inoo soo baxaya runtii ay noqdaan dad aan ku habboonayn waddankan inay muwaadiniintiisa noqdaan ama hoggaamintiisa noqdaan ama shaqooyinka kala duwan ee waddanka ugu baahayay qabtaan waddankeenu runtii uu burburaya marka shaqada culus ee runtii mudnaanta weyn leh ayay qaranka u haysaan subaxii macalinka markuu soo kalo waxaa loo baahayay inuu marka horeysa ka fekero markaa ardaydii ubadka u iman doonta markaa siduu akhlaaqdooda iyo tacliintooda u hagaajin lahaa markuu guriga ku noqdana waxaa looga baahayay inuu cashar diyaarintii maalintii dambe wuxuu dhigi lahaa iyo diyaar garowgii taa waxaa la socota markaa isna aqoontiisa inuu kordhiyo macalinku aanu halkiisa hore u taagnaanin arrinkan markaa qayb bay ka tahay markaa xukuumaddu ay noo diyaarisay xukuumaddu hoggaamiye mudane Muuse Biixi Cabdi barnaamij lagu horumarinayo tayada macalinka iyo aqoontiisa kulliyaddii tababarka macallimiinta laynoo dhisay si bilaasha markaa macalinkii wax loo barayaa shahaada la siinaya markaa caddaynaysa waxyaalaha uu dhigi karayo ama aqoonta macallimo bartay kadib waxaa la siin doonaa macalinka liisan baa la siin doonaa liisanku markaa wuxuu ka anfacayaa in aad macallin noqoto hadda kadib waxaa la joojinayaa qofkii intuu tabaashirta iska qaata macallin noqonayay ama guri ha ka dhigo ama goob dawladda ha ka dhigo ama meel barafad ha ka dhigo marka waxaan u baahanay inaynu liisankii siino macalinka liisanaduna markaa leefallay kala yeelanayaan marka leefalkaa uu kor u kacaba liisankaaguna uu isbedelayaa waxaad noqonaysaa markaa macallin marba heerka loogu talagala wax ka dhigi karaya qorshaha loo socdaana waxa weeye dhammaan macallimiinteennu inay noqdaan macallimiin wada tababaran ubadkana markaa waxbarasho taya loo u dhigi doonaan waxaad ku dardaarayaa markaa ku noqotaan kolley iskuulladiinnii idinkuna dee casharadii hore laydinku dhigana sii akhrisataan macallimiinta kale ee idinla joogana markaa caawisaan waxaan idinku hambaliyeynayaa marka ugu horreysa dee inaad qaadateen tababar inkastood macallimiin ahaydeen laakiin de kobcinta tayeynta waxbarashada ka mid tahay saddexda himilo aynu higsanayno ee ah fidinta waxbarashada iyo tayeynta waxbarashada iyo maamul wadaagga waxbarashada marka tababarkan aynu maanta sameynayno wuxuu ka mid yahay tayeynta aynu samaynay oo kale liisankii waxbarashada aynu nidhi waxaa la eegayaa qofka tacliintiisa inuu wax dhigi karo caafimaadka oo hadduu dee qofka xanuun qabo waa in laga daweeyo weliba cudurrada faafa oo kale dee ilaahay naga haye
marka liisankaasina wax kala maahe waa inaanu inoo qarsoomin qof dee laga yaabo inuu shaqo kale ku fiicnaa laakiin aanu macalinimada ku fiicnayn iyo inuu macalinka laftigiisu uu kordhiyo waxbarashadiisa mar kasta waxaynu nidhoo kale in macalimiinteenna database loo sameeyo deetana macallin kasta nambarkiisa iyo taleefonkiisa iyo haluu ka dhigo hadduu wareegana halkaa lagu qoro liiskaa waynu haysanaa marka tababar yaa u baahan si aanay u dhicin inuu qofna ku soo noqnoqdo qofna aanu weligiiba deegelin oo aynu xitaa naqaanaynu is-asaasgaranayna macallimiinta ugu baahi badan in tababar la siiyo waa kuwe ta labaad haddaba waxa weeye waxaynu u baahanay tababarkeenna laftigiisu waa inuu koro oo macallimiinta aan la odhan tababare saacadaha loo xisaabiyo oo credit hours looga sameeyo oo la yidhaahdo markaad intaasoo saacadood qaadataba waxaa lagu xisaabinayaa course oo dabeetana intuu ii ururo sidaa tababarkaa ugu jiro aan dee digrii qaato haddaan ku hore haystay aan mid labaad qaato soo maaha markaa taana waynu ku dadaalaynaa dee aad iyo aad baan yaan idinku mahadnaqayaa jisaaka lahum khayrna ardaydaa wuxuu dhigtaan miyi iyo magaalaba macallimiintana waxaynu doonaynaa inaynu daryaal u samayno sidaynu u samaynaynaa laba siyood baa la samaynaya miisaaniyaddana waa in lagu daro intii awooddeed sanduuqa horumarinta waxbarashadana waynu samaynay waynu waa inay dawladduna wax ku darto hay-adu wax ku daraan ganacsatadu ku darto oo la wada maamulo kaa laftigiisa waa in macallimiinta laga daryeelo markaa taana dee waynu ka shaqaynaynaa asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu